laga soo bilaabo sanadkii 2000 ilaa maanta intaagannahay Soomaaliya waxay yeelatay 13 ra'iisul wasaare marka celcelis ahaan la isku geeno waxay noqonaysaa in 18 bilood kasta ay yeelato ra'iisul wasaare cusub. Siyaasiga Cali Khaliif Galeed ayaa noqday ra'iisul wasaare ugu horeeyay Soomaaliya burburka ka bacdi 2000 ee loo doorto ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isagoo muddo sanada xilkaasi hayay. sanadkii 2001 ayaa Allah u naxariistay Xasan Abshir Faarax shirkii Djibouti ee Carta loogu doortay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Maxamed Cabdi Yuusuf 8 December 2003 ilaa 2004 ayuu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Cali Maxamed Geedi 2004 ilaa 2007 ayuu noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. نور حسن حسين نور عدا 2007 ilaa 2009 ayaa loo doortay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. mas'uuliyiinta kale xilkaasi qabtay waxaa ka mid ah Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo loo doortay sanadkii 2009 ilaa 2010 halka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo imika ah madaxweynaha Soomaaliya noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya 2010 ilaa 2011. Cabdiwali Cali Gaas ayaa loo doortay 2011 ilaa 2012 ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Cabdi Faarax Shirdoon 2012 ilaa 2013 ayuu noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Cabdiwali Sheekh Axmed 2013 ilaa 2014 ayuu noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa mar kale noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya 2014 ilaa 2017. Xasan Cali Khayre wuxuu noqday 2017 ilaa sanadkan aynu ku jirno oo ah 2020 ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha ugu dambeeyay ee Soomaaliya wuxuu noqday Maxamed Xuseen Roble oo muddo 3 cisho xilkaasi haya. Xamse Balbuul warbaahinta بيس Somali TV Hargeysa.